السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعنا هبون وبرامج كل بعد آيتين كبحشري وأنا جاي عبد الرحمن حسن. عبد الرحمن قرقور لك اللي ورنت رأي عبد سبع صوف وصارتي. قلنا أنا وحشيكتين الدفاع شو. إسرائيل يصوماليا. نيروبي كوكل. أطلع وعاوي لو طلابي. اعتراف كسومال لأن مركي هل كاميرا صديق الطيارة أنتوا بإسرائيل بشو. وحس أول وصوف وصار اعتراف كسومال له. أنا وصوك بعد ده. qodobadaas ayaan rabnaa in barnaamijkeena habeenimo hadii aad ogolaado iyo waxaad baad nagu beerso aniga asxaabtaad nagu dul marto inta ka horeysa maxaad wadayntan ka horeysa codkii wanaagsanaa iyo khayriga dadka gaarsiinayna insha Allah ta'ala waxaan leenahay dadka Ilaahay khayr ha siiyo ka qayb qaadatay dadka khayrka u taagan ee marba nala soo xiriiraya ee wax diraya qaar soo laba noqonaya waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka haydiin saaro dib dhaaf Allah haydiin ka dhigo waalidiintina Allah ugu naxariisto maalka haydiin ku barakeeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala sadaqada Allah baxaysa wa baytullahi wa masjid Ilaahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu masaajidka ka hadlayo wuxuu wa ana al masaajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada masaajidada Ilaahay baa iskale isaga ciidan hayna lagu macaabudo guri Ilaahay baan dhisanaa waxa halka gashanaysaan yaa geysanaysaan waa وما إلهي وحده ومن يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له وريا إلهي ما هنا يا أمه ونكسم ولي من اللي بتشباره كور هذا مال $100 دقيقة $100 $100 وخون غري دي وفايدة لا والله بقول كلا أنت الله بحضي شنطة $100 الله بحضي $100 إلهي كل بتشباره اللي بتشبار معاش كدويا هنا معاش آخرة إن شاء الله تعالى مساعدك في الوعي مريا شيء سفر بنكون تجدونه إن شاء الله أنت الناس سفر كنت تجين وحيسك صوت ضبط على سقايرة السبر كأي مساعدك كصابسن adigoo عبد الرحمن حق وعدي حق وقت صالح بانو يريسان أنا waxaan leeyahay warka kacaw masaajidka sibir iyo gacanta labadaas ma kala harayaan labada arrin buu arday masaajidku waliba sibirka imka aad u culimadu ku aad u qeylin Soomaaliya aad iyo aad looga qayb qaatay insha Allah way firinta culimadu looga qayb qaatay insha Allah waa masaajidka Suleymaan barabshada alle weeye oo masjid nuur badweyn weeye walaalayaal waad aragtaan waxaan soo gaaray adduunka $3,000 buu ahaa qalab baan soo siinay adduunka soo siinay oo yaalaa halkaas oo maraya hadeerta waxaan u haynaa gacanta ugu haynaa ma jirto binaadiisa hadda bilaamaysa gabar waxaan laga soo qayb qaato hala soo caawiyo si fiican laga soo qayb galo ma sha Allah walaalayaal wixii Ilaahay loo sii dhibtay weeye wixii masaajid la gashay oo wixii Ilaahay loo sii dhibtay oo wixii Ilaahay amaahsaday waa sadaqad jaariya weeye waa camalkan go'an weeye fi aakhiro anfacay qofka حتى ميتات dadka xuquuqda maxsiniinta hadeerto dadka ugu fiican waxaan ugu lacagta badnaa hada inta soo gaadhay dad waalidkood xudhigay bay ahayn Ilaahay ka tirsi sidaas oo kale hal laga soo qayb qaato walaalayaal ana la liso masaajidkaas waxa weeye masjid nuur badweyn talasom iyo samteelba waxa ka soo baxaya masjid nuur badweyn assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh WhatsApp iyo qolahana halkaas ana ka soo xiriirsan sidii ana soo xiriir jirteen وأنكم أحسنتم الله يبارك الله يبارك الله يبارك حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن بعد مساج أرتع اعترافك سمع له وعلى شيءين أرينا يصوف وصارتي وكون كان ماشي الله يطو ما هو كلا جار بور صوف وصار بقى جار صوف وصار كون كان مركب حوها كون جار أبوها ست كان سؤال شو قصحنا لو سؤال كلا دوين بهاين بنوع كل إسرائيل الصومالي يأكل من نيروبي بنوع قطبه وين عقبات الصوف وصار يقوم سكيت بريد السماعيل وكان لبضع قطب بينو خلق قاعدين هذا كله أكون رينو إسرائيل الصومالي بنيروبي كل ماي بنيروبي شو قصة تروح دعم قاعد نيروبي ده طبعا واحد سويدينه هديبا xiriirka Soomaaliya ay sheegtay in Israa'iil aqoonsanayn hadii madaxweynaha Soomaaliya muddo ku dambeeyay Israa'iil aqoonsanay maxay tahay kulanka Nairobi ku dhex maray Israa'iil iyo Soomaaliya dadku waxay isweydiinayaan maxay tahay waxa laga wada hadlo kulanka oo Soomaaliya guud ahaan wax maamuusa kuma ilahay looma yeeran wax iska xaadiran madal aan lagu talagelin shirkan waxa la dhahdaa shirka afakaadada ama wax soo saarka afakaadada faa'iidadeeda afakaadada caadiga ah cunnadeeda matala shiido ayaa faa'iidadeedii wax soo saarkeeda laga dooday shirkan waxa qabsaday dawladaha Itoobiya Kenya ayaa qabsaday sidoo kale dawladda Israa'iil ayaa qayb ka ahayd wax soo saarka afakaadada oo imka dunida aad looga isticmaalo ayaa laga dooday Soomaaliya ka soo qayb gashay waddan safiirka Soomaaliya Kenya u fadhiya ayaa shirkaayay tatana waxa sawirada ama warbaahintu ay qabatay iyagoo safiirka Israa'iil iyo Soomaaliya isdhinac fadhiya Soomaaliya afakaado ma soo saarto
يا afakaadho Soomaaliya kama baxo oo ma soo saarto maxay shirka ka soo doontay dadka aad is weydiinaya Soomaaliya waxay moodaysaa meesha laga hadlayo heshiiskii Ibrahim Accord way rabtay gasho way rabtay meel ka soo gasho ayaa la moodaysaa laakiin afakaadho Accord baa laga hadlayay way heshiis afakaadho Accord ayaa meesha laga hadlayay markii warkaas baxay kadib warbaahinta ayaa aad u baahisay sawirka safiirka Soomaaliya ugu dambeyn canaan badan ayuu Soomaaliya kala kulmay sida dawladda warbaahinta meelo badan oo kamid ah sawiraysa wargal lidgiriyay marka kafta laga tago hunguri xumo uun baa ka muuqatay inay meesha u tagtay Soomaaliya laakiin matalaad lagu marti qaaday iyo masiir umadeed iyo wax iyada ka quseeyay iyo wax Soomaaliya saameyn ku leh midna uma tagin marka dadku waxay leeyihiin war malay Ibrahim Accord iyo afakaadho ayaa iskaga khaldamay afakaadhadu bay Accord-kii bay afakaadhadu aragtay Soomaaliya waa soo lunta halkaan waa ku soo khaldantay kulankan ayaa si weyn baraha bulshada u qabsaday meelo badanna laga falceliyay iyadoo muddooyin ku dambeeyay Soomaaliya ay aad u weerarsanay dawladda Israa'iil haddana in shirkadda Israa'iil ay shirgudoomayso ama ay iyadu tahay daadiyadeeda in Soomaaliya qayb ka noqoto su'aalo badan dadku ay iska dhaliyeen Soomaalidu waxay dhahan magaalo qayrka u cay Soomaaliya Israa'iil marka saa loo eego waxa muuqata wax maslaxada oo gaar ah oo dan Soomaaliya aanay ku maagin laakiin masaariifta dhaaftay iyo maraqa dhaafay iyo mushaharka dhaafay iyo masaariifta dhaafay yaa sidee ee xagga Soomaaliya u dhaafay yaa u dhibay sidee waxaan dhaafay Israa'iil Soomaaliland baa Ilaahay u barakiyay waxa Soomaaliland Ilaahay u barakiyay Israa'iil Soomaaliland ka heshay buubay Soomaaliya ka galgalaysay waxba ma dhiibin waa hunguri ma haysan nimankani way noo dhiibtay wax weeye mashaariic badan soo socotay heshiis baa dhacay dawladda ku aqoonsta leedahay wax noo may dhiibin aqoonsi dunida kale aad lagu siiyay qalbiga ku taagan war qalbiga ku taagan lacag mid haysa assalaamu calaykum waxa aad qalbiga taagan to lacag kaga dhigtay wad 34 sano 5 sano dunida aqoonsi ka rabtay dawladda ku aqoonsto safiir ku siiso safaarad ku siisay baad leedahay lacag baa la doori wad waxyaabaha niyo la yaab kale dadka inuu soo fakaraya ama qaabka cunfiga dadka fakaraya bacaynkaas adiga qurana ma ahe aqoonsigu lacag ma haya masaariif waa maxay aqoonsigu waa mashaariic aqoonsigu waa horumar aqoonsigu waxa weeye inaad noolaato oo aad qof la yaqaan noqoto baasaboorkiisa diblomaasiyadda saleeqada dunida meeshana baasaboorkiisa ku mara waxay lacag ku taraysaa lacagta doono shaqayso hada lagu soo shaqo tagayay ma dhaw 100 qof oo Soomaaliya ama 100 qof oo Ethiopian ku shaqeynaya adoo ilka casa amaaniga waad qaaqlahan YouTube-ka iskaga tagaysa oo lacagta keenaya diyaa wax sar keenay warshada ka soo gudub dadka ay iska qasda yani waxa la inuu helay cunta kala qiimo badan taas oo qalad cunta maaha ka soo gudubnay war lacag maayada war lacagtu waxa weeye way maraysa umada nolol baa ka horeysa lacagta hadaan loo jeedo lacagtu maxay taraysa wad marka Soomaaliya guruuba ay la qaylinayso mashaariicaha dhaafay ayuu bay ka qaylinayay kulankaasna maanta saas waa hadda la ka dhigo kulanka labaad qaybta labaad ee barnaamijka kulanka labaad aad u gelin kulanka Soomaaliya oo fakadada laga hadlay iska soo dhaafaa horta bal laga batay deeraade anigu horta waxaan waxba ku weydiinay Ibrahim Accord iyo fakadada horta ugu wareegtay labada midna garan maayo ka socdo hoos u gal oo isdhaafiyo waxa laga fahmi oo ka amwad leedahay yaa laga fahmina marka aragto mowduuca laga hadlayo inaad qaangaar u ahayn wala isaadriyay hiidaada ku mintid hiidaada hay laaw hiidaada aan hiidaada wate Cabdiraxmaan Soomaaliland arinteedana bal wad aqoonsiga Soomaaliland caqabadaha soo food saaray dhowr caqabadood ayaa soo food saaray maanta waxa ay qolada ictisaamka inay Muqdisho war ka soo saareen qolada ictisaamka loo yaqaan in Hargeysa ay Muqdisho war ka soo saareen warkoodu wuxuu ahaa in safaaradda Qudus Soomaaliya ka furtay la cambaareeyo in kacdoon Soomaaliland laga sameeyo in arinta laga dagaalamo arintu waxa uu Hargeysa inay ka bilaabantay meelo waaweyn culimo waaweyn arinta ka hadashay culimo waaweyn baa maalintii Jimcaha ka hadlay arintaasna dood midnimo Soomaaliland dub uga abuurtay siyaabo kala duwan oo uga hadlay aqoonsiga Soomaaliland wuxuu wajahay caqabadaas way farabaday caqabadaasi mid wax weeye mid dibadda ka imanaysa oo la adeegsanay dad gudaha jooga midna waa mid gudaha ka imanaysa oo dadka arrinka wada aanay ujeedo kala lahayn fahanka arrintan ay ka haystaan ay qaldan tahay arrintaas culimadu siyaabo kala duwan bay wax hadlay mar haddaan dawladda oran cid baa dabada ka wada inagu oran cid baa dabada ka wada laakiin waxa aan u malaynaya fahamka barnaamijkan inaan aad isla fahmin tusaale culimada caawa hadii loo dhalo bal Soomaaliland aqoonsi u baahantay Sacuudiga ma ogola Turkiga ma ogola Masar ma ogola marka imaaraad laga tago ummadii kale ma ogola bal weydii kale idin dhiibaya Soomaaliland aqoonsi u keen hadii la yiraahdo meel alla meel noo dhaqaaqay ma jirto
وجنا عندي اللي وقضب كلامه سعودي يدولدها الإسلام يجا إسرائيل أقوصوا هرم عام بالاسم maxaa qadiyada Soomaaliland iyo aqoonsigeedii diinta mataaniyay Falastiin iyada Qudus saxiixday oo ogolaatay Israa'iil ay qaybta digto iyada Israa'iil macaamil la sameysay Masar iyada Israa'iil dawlad waa aqoonsan oo macaamil la sameysay mushkilada taagan waxa way fahamka macaamilka siyaasiga iyo fahamka diiniga waxa muddo Soomaaliland marka wax loo diidayo in faham diiniga loo adeegsado tusaale ahaan waqtigii la galay barnaamijkii loo yaqaanay badda ee MAU-ga Soomaaliland shaar dibadda loo soo gashay Ethiopia badda imanaysa Sacuudiga ay weeraraysa xaramkay gelaysa culimadu aad bay uga hadashay markii ninkii loo jeeday Abiy Ahmed uu hargey tagay Muqdisho waxa laga qaaday Ethiopia Abiy Ahmed waa iga abgaal Afrikana waa walaal Afrikana waa walaal Abiyna waa iga abgaal laga qaaday waajir abgaal culimadu markii halka uu tagay kama hadlin markii Soomaaliland uu la macaamilooyay xaaraan bi ka dhigay حتى إسرائيل هدي عاو حاسس شبه مسافرات كفرتو علماء قيلنا سوي أمس بدكود جبهان واي علماء مفهم بالك هاي برنامج كان سياسة دينته هو ضمان الإسلام هو ده اعتراف قالوا هو سيالله بالمير الإسلام شوية قوس إنه كان هل ضوء الإسلام بالهاي ناقوس ما شرته واي ما كان هو واحد كذا الله فكر وقوس السماء الآن عجيب قوة هو فكر كعلماء قار كمية وأنا ورا ما يدبر على جوده ما عد بعد ضبط كوده فكر بيصير سياسة كهيسم sidoo kale fikir gudaha laga abuurayo iyo kacdoona bulshada lagu talagalayo oo dibadda laga riixayo way jirtaa dibadda ama Soomaaliya hamaal geliso dawladda Turkiga hamaal geliso sirdoonka caalamka hamaal geliyaan dhammaan arrimahaas waxa la doonayo lagu propaganda aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland hadaba maxaa uga meeriyaan xukuumadda Soomaaliland laba qodob ayaa la gudboon mid waa wacyiga bulshada ay dhisto hadii bulshada laga kaxaysto bulshada lagala haro wax kasta wada macna yeelan maaya xukuumadda culays badan baa u yaala shaqo weyn baa u taala sidee ay xukuumaddu u dhisi doontaa wacyiga bulshada si ay sura jaan qaado xukuumadda iyo bulshada sura jaan qaada hadda waxa jira weerar afka iyo cambaareen waxa dhici karta weeraradaas in horto isu bedelaan kuwa baraticaal oo dhaba oo dawladda waaweyn soo weeraraan oo dagaal baa noqotay hadii marka wacyiga bulshada aanu dhisnayn adiga bulshada waa la idin kala kaxaysanay maaliyad lagu bixinaya cudud baa lagu bixinaya xukuumadda Soomaaliland waxa uu yaala wacyiga bulshada inay dhisto bulshada reer Soomaaliland waxa uu yaala in wax ay yeeshaan qad cagaaran laga gudbi karin aqoonsigu waa qad cagaaran wixii kala waa isku hayno xisbiyaan ahaan oo kala aragtid wanaan madaxweynaha nabcaan oo Muuse nabcaan oo Ciraan jeclaan oo mucaarad ahaan oo muxaafid ahaan خط عقارب بجرا وقرني ما ضواه تصير بشدة وثلاثي خط عقار الله على متصل عبد الرحمن والله قدم ممكن هلك كاتقنا واحد شرطة يعني قرقور يارنتيس كل يوم بك هذا الشيء واحد وين نكها السكريبت تاعه كل يوم هذا هنا واحد شكتين ساعة وقرب تاعه انتهى والله انتهى والله قدم شو كايسان قرقور culays badan baa soo foos haray deegaanka Dhuusamareeb ee caasimada Galmudugna qax baa dhiisha laga dhigay dad iyadoo laga cabsi qabaha inta kale halka ay ka dhacaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada ugu badnaa halka ku daabulays muhiimada ugu weyn mushkilada ugu weyn taagan waxa way qoran xilka digo qorqor iyo xasan sheekh labadaba maandoodkooda waa dhamaaday hase yeeshee xashan wuxuu doonayay inuu sii xalaasho isagu si joogitaankiis halka qorqor uu doonayay xilkaas oo isdaafiyo ka digo in qaadlo oo loo yaqaan liiwan shurux ayaa loo sheegay in kooto loogu xidhay xilka la doonay hase yeeshee arrintaas xasan culays badan ayaa kaga yimid taliyada sirdoonka Soomaaliya ee mahad salaad iyo xasan oo muddo dheer rafiiqaha ayaa xitaa ku kala arki duwanaaday qorqor isagu waa u diyaar garoobay dagaal kasta oo soo food saara marka saacad kasta Galmudug waxa muuqata toddobaadka soo socda la isku afkaran in dhibaato ka dhici karto dad badan waxay isweydiinayaan sida lafta Green baa la soo qaban doona qorqor mise uu isdifaaci doona laakiin dad badan waxaan ogeyn in qorqor ka jiricsan yahay lafta Green sababta ciidamadii federaalka ayaa gudaha Galmudug ku sugan oo mushaar ku qaata ninkay seeriyanayaan iyo isagu waa isku beeli difaaci lahaana way kala qaybsayeen caqabadaha marka la eego waxaad moodaa in qorqor uu ka duwan yahay lafta Green hase yeeshee marka loo eego qorqortu waxay leeyihiin waa nin dagaalyahan hore u soo dagaalamay deegaankuna deegaan colaadada ku badan ayaa yaala taasay suurta ay kartaa ay leeyihiin hase yeeshee maalmaha soo socda ayaa ka marxaati furi doona Puntland ayaa hadashay madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxa uu sheegay in ay dadka Galmudug dawladnimadooda sharciga ay difaacdaan Puntland ay difaacayso maxaa keenay arrinta marka Puntland ma yar cabsito oo gashay Puntland ma maqashay
fiin turubka soo socday koonkooda haddii gaalka ay dowladda federaalka soo fadhiisato oo iyadu ay wadataa galmudug timaado maxaa diiday in ciidamada Soomaaliya diyaar lagu soo daadgurayo ay Puntland dhinaca ka soo weerara Puntland waxa dadkii joogay Baydhabo sii socday oo mar qolay dhinaca Puntland soo rogay oo la taagan oo gaalka ay dhinaca soo taagan marka cabsi weyn ayaa maamulka gobolka Puntland soo food saartay oo arrinta ku waajahan waxaana uu madaxweyne ku-xigeenkooda maanta sheegay inay galmudug dowladnimadooda difaacdaan sharciga iyaguna ay garab taagan yihiin haddii ay dhacday Axmedow in qoor la qabto ama talada waxa weeye lagala wareego sida Xasan doonaya suurta gasho ciidda saddexaad ku xigta waa Siciid Cabdullaahi Dani waxa la helay miidaan iyo masrax qurux badan oo laga soo weeraro taasi waxay Siciid Cabdullaahi Dani faraysaa inuu naf iyo maalba ku bixiyo sidii qoor uu joogi lahaa galmudug way Cabdiraxmaan mar haddii ay waxaan bilaabay iyadoo mandatekiisa dhamaaday haruuraysiga maamulada Soomaaliya oo marba mid soo qabanayo Puntland ay tahay fiintu waxay ka weydaa roobka soo socda ee kaaya ma aha maxaa Soomaaliland kuwa yana la gudbo Soomaaliland way dhaaftay in Soomaaliya ka warurto Soomaaliland waxay ka waruraysaa ama imkaysa hayaan dawladaha waaweyn ee Soomaaliya taageer tusaale dawladda Turkiga ugu horeyso taasoo Soomaaliland iyo Turkiga taas imka la ishayaa cabsi Soomaaliya kama qabto Soomaaliland laakiin Soomaaliland waxa culays ku hayay dawladaha waaweyn ee Soomaaliya ayaa agency-ga u tahay taana Soomaaliland madaxweyne maanta waa ka hadlay fariinta madaxweynaha waxay u dhignay fariin ka dheer Soomaaliya waa caddaankan wada loolana madaxweyne Xuseen Miin markuu madaxweynuhu yiri anagu Soomaaliland kaligeed ma marka in Soomaaliland iyo Soomaaliya dagaalkii ka dhixiyay wuxuu u gudbay dagaal caalami oo dawladda caalamiga ay kala taageerayaan marka warar badan Soomaaliland xaggan kama saarna laakiin siyaasad ahaan cidda Soomaaliya taageerta saameynta ay Soomaaliland ku keeni karto tasawur badan la iyo saameynteeda Cabdiraxmaan horta oo mahadsan tahay inaan maadho suuqa ku arkay baa la kaftamay wixii la caddi minka way gudubtay gaaladii ka warantaa iyo camaladooda adigu imku wad gudubtay dagaalku wuxuu shangeediyo inta tanbu marayay goortu Turkiga gaaray anigu halkan suuba ku baraarugay maadiga hadda waan ka harayo markii aan ku yiri Soomaaliland maxay difaac ka galaysaa ninkan Xasan Sheekh Maxamuud maamulada soo aruurinaya de ma Xasan kama jawaabin iyo Soomaaliland wax uga qorshaysan laakiin arrintii waxa uu dabacday Turkiga Soomaaliland iyo Soomaaliya intuu Star War buga halkii indheende marka hadda saxto wada maraysaa warka la soco halkaan marayo dawladda halkaan maraysa la soco guurha markii oo digarugo adigu shangeed waxay ka filayeen ka hada dagaalka ay barta ka socdo maya kii Soomaaliya xitalaafta shangeed ba ka tagna inaga ma aha waqti iyo warka asxaabay qodobkaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka hadii goladan iyo Cabdiraxmaan dadaheenay ay tiin ka baxayay inta Soomaaliland waxa leeyahay guuliyo gobonimo adan xaleeda inta kale nabada haada way